بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada saaxiibayaal mar kale maanta waxaan idinla wadaagi doonaa bug cajiib ah sheeko ku qoran bugani intaan bug akhrinayay waa buggii ugu cajiibsanaa ee aan akhriyo bugan magaciisa waxaa la dhahaa kooradada ama cishqi iyo colaad waxaan kugula talin lahaa haddaadan bugan akhrin fadlan soo iibso oo akhri inta aynaan u gelin barnaamijkeena maanta fadlan muuqaalka like saar haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir mahadsanid taariikhda ay sheekadani dhacday waxay ahayd qarnigii 19aad sanadkii 840kii meesha ay sheekadani ka dhacdayna waxay ahayd Sanaag iyo Qarno sanadkani wuxuu ahaa mid barwaaqo ah oo ay dadka iyo xooluhuba ku doogsadeen hase yeeshee dadku lanaanta ma xijiyee waxaa jiray waxay dadka oo dhan wada raadinayeen waxaasina waxay ahaayeen farda laga leeyahay Sanaag oo loo yaqaanay Sunaari Manaa sida fardaha loo doonayayna waxaad ka dheehan kartaa suugaanta ay dadku isla dhexmarayeen iyagoo lahaa ninkii xoolo doonayo xamara ag joog ninkii xila doonayo xamara ag joog ninkii xaraga doonayo xamara ag joog sidoo kale fardaha waxa kamid ahaa faras uu jeclaa Sayid Maxamed Cabdille oo loo jiray Jaarig faraskan oo ay daraawishtu la yaabtay boodadiisa iyo kartidiisa Sayid Maxamed oo faraska tilmaamayna waa tuu lahaa faras u waayay oo jeedo faras u waayay boqol u waayay boqolka dhuudo boqol u waayay wiil u waayay oo sawan wiil u waayay haddaba fardaha Sanaag waxa ilaashanayay oo mar horeba qorshihi ay ku dhici lahaayeen rag degan deegaanka Qarno iyadoo taasi jirto ayaa fardihii waxaa la keenay bal la dhaho boodo bankaas waa ay joogeen koox lagu talagalay inay fardaha Sunaari Manaa soo dhacaan sidoo kale fardaha waxaa la socday koox ilaalo ah balse laakiin xilli ay hurdo ku jireen ayaa fardihii la dhacay waxaana dhacay koox ka timid deegaanka Qarno hase yeeshee markii ay tageen deegaanka Qarno ayaa odayaashii Qarno dhaheen war maxad xoolaha sokeeyaha u soo dhacdeen sawtii la yiri maaha qaan sokeeye waa qaaxo hase yeeshee nin kamid ah dhalinyaradii fardaha soo dhacday ayaa odayadii ugu jawaabay gabay faaqa wuxuuna yiri cambar baa ilaahay ku riday ciise maxamuud ee sangeecoodii weyn oo cayinay caynka ma u geeyay macantuu jaceelkii buraan waa rag ciil qabay cirguduud ma weeraray kobtaan laga cabsoonaynin cabdallaha sidii coon la dilay موغعل بيلي فردا عينف كوديو مهلي رمي عوافيسا عقيه مكاجري فردا لغو عرابايا عو سمد مير عو قريو عولي هومرت قبيقاس مركي لما غليلنا عركي فردها قروحدو دايان هو وليبا صودونتي فرديه سيو قيبتي سويهل سيدو قلا رقي فردها سونعي ايان ويديا حقي فردها وطاقتين وحين الشيغانين ايين بدن وقلو من ايين بغوشا لدهور ران فردوهنا وحي كعبي جرين عيل ودو بغوشا markii waraysigii dhamaaday ayaa nin kamid ah raggii dhageysanayay waraysiga markuu arkay fardaha quruxdooda iyo sida loo soo dhacay wuxuu mariyay tixdan allow wiilashii rahan tagow haydin kala reebin oo haydin raydalin xilbaab inaga reebteen in rikaab la go'o reer garaab waa waxa rabay reereeyay nimankii hadday caga ku rooreen fardihii waa la kala qaybsaday waxaana la geeyay Nobel qoladii fardaha laga dhacay waxay go'aan ku gaadheen inay irgad ka daba tagta fardaha ay diraan ergadaas oo marka dambe la magac bixi doonto waji adag ergadaas waxay ka koobnayd 20 nin oo isugu jira rag xaajaqad waligii ahaa sharciga diintana aad u yaqaanay iyo sidoo kale dhalinyaro marka loo diyaarinayay inay jiilka dambe u noqdaan garwadeeno ama hogaamiyayaan ergada waxaa hogaaminayay Ciise Maxamuud Cali oo ku magac dheeraa Ciise Garguduud ahaana nin nabad iyo colaad ba yaqaan sidoo kale wuxuu ahaa nin aftahana gabyana ah isagoo qolo u ergoonayana waa tuulaha الله يا علوشيدا ضيا waxa kan ceegaaga allow yaa cadaabkiyo jannada cayn ka wada yeelin allow yaa caqliga ila mido caawa talinaya allow yaa ciroolanahay iga ciraab qaata allow yaa cadiin lama tufee cunaha dhaafsiiya allow yaa colaadli idarmada caafi ugu seexda sidoo kale ergada waxa kamid ahaa Maxamuud Xasan Cali oo lagu naanaysi jiray Shalmad ahaana nin dagaalyahana waxa kaloo kamid ahaa أحمد سماتر وإسنا هابان دولة عابدة كنا ديرين تري أفتهنمدا وانا ننك لويري أحمد ويسدن آدودته يدقالك كالداك يكو جوابي إلهي ما نعلوبين إنك علوي سيدو كنت وحا إرقادا كمدا هافضال وإسنا قبيان يصالح أحمد نالي ولونا ليسي تري بين حقا داليرتنا وحا كتشرين يوسف محمد علي أولو يغيني بحول مقعن بحولنا waxaad ii hoos dhigtaa xariiqo fara badan maxaa yeelay waxaan arki doonaa wax badan ergadi waa aan babixeen waxayna sii mareen dhul badan oo aan roob lahayn waxay saaxiib la noqdeen gaajo iyo haraad
waxay socdaanba ugu dambeyn waxay tageen meeshii ay u socdeen waxayna u tageen beeshii fardahooda dhacday guud ahaanba ergadu ha ahaato odayaal iyo dhalinyaraba waxay ahaayeen rag yaqaana qaxarka iyo nolosha adag ee miyiga sidoo kale beeshan ay u yimaadeenna waxay ahaayeen rag ay ka dhaxayso xididnimo iyo ehelnimo balse talow maxaa dhici doona xaalku soo noqon doona odayaashii fardaha wiilashoodu soo dhaceen waxay ku tasheen inaysan marnaba fardaha celin sidoo kale waxay ku tasheen inay jebiyaan xeerarkii Soomaalida dhaqanka u lahayd oo waxay yiraahdeen nin ragaa tag lama dhahee waxaa la tusaa wuxuu ku tago ergadii waxaa loo oday ardaa waxaa laga yaabaa inaadan fahmaynin ardaa laakiin ardaagu waa meel loogu talagalay dadka martida ardaagani sidii Soomaalida caadada u ahayd ma ahan ardaa ergada lagu hagaajinaye wuxuu ahaa ardaa lagu dagayo cabaad kolkii la joogay ayay yiraahdeen xageed u socotay balse ergadii ayaa tiri socod nooma harin oday la dhihi jiray Gambool oo kamid ahaa deegaankii fardaha dhacay ayaa yiri idila hadli mayno inta Ciise Gadgudud hormuudka idin yahay saddex sifo oo uu leeyahay daraadeed baanaanayn kula hadlay ta koowaad runtuu necab yahay raxmadu ka carab wuxuusan aragba ku dhaata Ciise Gadgudud oo fahmay hal xidhaalaha odaygan ayaa yiri saddexduba waa runtu waa moodkoonina geeri ma jecel raxmadu waa roobkoon waliba gurigiisu ka galaa rabbi waa rumeeyay ma saarag hadii Gambool isagu Ilaahi saarkay ergadii markii shaacii dumay ayay tageen ardaayadii cabaar markii ay joogeen ayaa waxa loo keenay hilib kulul oo wada baruur wax kalena lama soo raacsin sidana waxa ka dambeeyay oday aan weligii sama ka tarin hase yeeshee ergadii hilibkii farmaysa saarin subaxii ayaana laga qaaday xidhooyinkii oo sidoodii odaygii tabta soo dhigay ayaa qoslay oo yiri sidaa ku wada wax biyo ahna yaan loo geyn ama ha carraan ama ha joogeen maalinkii oo dhan ergadii cidi uma imaan habeen labaadkiina waxaa loo keenay hilib baruur iyo jir isugu jira hase yeeshee garba baa la tusaay oday ergadii kamid ayaa yiri hilibka iyo baruur ka goosta oo aad taxagada isaga jartaan intaana ha ka badsanina qaabkaas ayaa ergadii martisoor looga dhigay iyadoo waliba la meermeerinayay oo aan lala kulmin ergadii waxay codsatay in boqorkii looga wargeeyo hase yeeshee waxaa loo sheegay inuu Beyla ku xanuunsanayo Beyla waxay ku taalaa xeebta badweynta Hindiya shirkii koowaad ayaa la isugu yimid ergadii markiiba waxay dhaheen xoolaha iyagii shuruud la'aan lagu siiyo balse qoladii fardaha soo dhacday ayaa ku jawaabay waxaanu idin haynaa ma jirto ergadii ayaa haddana tiri ninna yaqaan anaguma soo dheeray ee war xoolaha iyagiina siiya iyaguna waxay dhaheen malaha annaga nala hadlimaysaan halkaa ayaa lagu kala kacay shirkii koowaad odaygii aan samaha aqoon wuxuu yiri war hilibkii hore ragga ka bedela oo waxaad siisaan hilib shiilan naftuba ha ka haadi hase yeeshee saaxiibkiisii kale ee ergada la socday ayaa yiri markii hilibkii loo keenay lafaha inta tibisaan ruuxa ka muudsada hilibkana ha isku taabanina haraad baad ugu dhimanaysaan fadhigii labaad ayaa ergadii la isugu soo noqday iyadoo ergadii ku celcelinaysa xoolaha iyagiina siiya qoladii kalena leedahay shalay dib looma sugo maalmo badan ayaa la iswar fadhiyay oo dhanna loo kala bixi waayay hase ahaatee ergadii sanaag waxay noqdeen rag adkaysi Ilaahay ku manaystay oo gaajo iyo haraadba u adkaysay Soomaaliduna waa tii hore jirtay ergo waa inay kurtin qorax uga adkaysi badan tahay kudkudana gaajo uga adkaysi badan tahay kelabna cay uga adkaysi badan tahay Soomaalidu dad adkaysi badan ayay ahaydeen balse ergada waji adag waxay noqotay samanka raggii ugu adkaysiga badnaa ee loo qiray kaliya adayga iyadoo waliba ay ku jireen dhalinyaro si kastaba ha noqotee maalin maalmaha kamid ayaa ergada ogaatay in beesha ay martida u ahaayeen ay leeyihiin shandoceed waxayna sameeyeen iyagoo aan loo wicin ayay khasab ku galeen meeshii buuq badan kadib waxay dhiibteen dacwadoodii balse haddana maysa suurtagelin in xoolahoodii la siiyo ergadaasi deegaanada waxay joogtay 2 bilood waxaana lagu ballamay in shirkii ugu dambeeyay la galo markii geedkii la isugu yimi qolo waliba waxay dirsatay hal nin oo u hadlaa haddaba ergadii ayaa dirsatay Ciise Gadgudud wuxuuna ku yiri idin aragnay idin maqalay balse idinkama siisan hase ahaatee bal saddex codsi noo yeela muddo badan biyo bishmaha maana saarin ee mar kaliyana waraabsha jidaal baanu nahay jid dheerina waana sugayaa nasiijin sima hal faras oo qoora noo soo celiya oo geeyooyinkii hadhay noo kuda oday Gambool xidig la dhaho ayaa ku dhaatay in isaga mooyaane cid kale u jawaabi wuxuuna yiri saddexdaaba saddex baa laga yiri no waraabsha tiraahdeed idin waraabin mayno allana idin ma waraabsho najacsi baa tiraahdeed saalax bii qashay isaga jiriya cadiib baydu ku filane saalaxi
wuxuu ahaa nin ergada ka mid ah. Faraska oo dhanna siyaa tidhaahdeen bax wal u haysta fardaha isagaa ashkari iyo barood iyo sumaari bay idin dhalayeen. Ciise Gadhguduud ayaa ku salaatay hadalka uu yidhi nin rabbi yaqaanowna waraabe, nin rin yaqaanowna la hadal, nin rag yaqaanowna male. Gambool Xidig ayaa wuxuu ku celceliyey nin rag yaqaanowna male dhowr jeer markuu ku ceshay ayaa odayaashii intay kaceen oo ergadii geedkii kaga kaceen dhaheen odhaahdan caan ka baxday nin waliba wuxuu qabo qardhalla iman doone. Ergadiina halkii ayaa cano kala kacday. Kan iskuma jira ee Foodina Shibiin oo ka mid ahaa beeshii sida xun yeeshay ayaa ka xanaaqay sida ergada loola dhaqmay. Ergaduna waxay ugu beermeed abti. Sidoo kale wuxuu qabay gabadh ka soo jeeda beesha ergadu tahay. Ergadii way tageen iyagoo nabad u yimi balse colaad la laabtay. Food Shibiin ayaa ergadii ku yidhi in yar isugu aan idin jecsimay haddii laygu kin arkana waa lay dilayaan. Haddaba gobolku markuu dhacay wuxuu u keenay awr iyo haamo biyo ah. Ergadii biyihii ayay cabbeen iyagoo iska dhowraya. Awrkiina markiiba way qasheen isagoo nin waliba calooshiisa ka buuxsaday. Intaa kadib nin la dhaho Cabdifaadhfaadh oo ergada ka tirsanaa ayaa gabayga tiriyey goortay wanaaggii bacreen bagac ka siin waayeen ansabele iyo baasoo baxay sama u baaqbaaqay burladuuladii weyraxo burursanaa joojay bilaawaha u daa badhaq muglaan mooday inay kugu bax oo kaa bax tahay baadinka u sheegay mid kastaaba guusha ha bursado labada beeloode burqashada colaad iyo fidmada bele madow mooday dabadeed halkaan baala galay balag u laadlaadsi waxna igaga beegneyd ergoy waajibkaa boganaya badbaado iyo nabdoon iyo wanaag ugu bishaaraynay boqoshoon sooriyo ilaa bare u gowdiiday bidaar iyo ciroolaba kay ku tiil baaqa kula eebtay baybaysi labadan arkaba beegay damacayga markii layged bixi waayey oo xaajo igu baahday boqorkii jirow mudanahay baafe ku hawooday bugtaa dhigatay beyla iyo xeeb damaca beenaystay bidhaantiisa berigii allaba bidix u jeedaashay bastiisa weeye goortaan hubsaday badan madoobaaday boqolyowga weyn een u qabay laabtuu ii belashay rabbigii baryada uu fi jiray uga bogsoo tuugay burdihii iyo ikhlaaska u akhriyey leylka dabadiisa balse biririxdii loo dibdhigay bayd go'ay noqotay halkuu igaga beegnaa dadadu igaga baalbaashay baxsi guriyaduu celin ogaa baylahdood dayatay markii maan bariya maan bilaad xaal ka bixi waayey berri waxaa imaaniya hadhow tala ku baayaashay anse boodo iyo baydad iyo bayr iska ilaashay baahida u garab dhiibi oo ayda ugu baaday bisayl iyo gungaadh aawadiis waana dheerbadiye berri iyo baxnaanaa u dhiman bilibil ii dhiibtay basar daawo yeeshiya heshiis baaditaan mudatay bilciriiro ii soo disho la agbayoognaaday ballanqaad anoon weheshanayn waa tol ugu baaday buddigeenku waa shirahayaan baafis ku ogaaday bidhaansaday badhkood sii socdo dhiris ku sii beegay inta aanay xaalkooda bogan beesha kaga yeedhay bilowgii baljoog iyo buh iyo buus u garab dhiibshay anoo boobay kaanu la bukiyo baana haytabiyey gabay lagu baraarugo murtida boodhka kaga qaaday beentiyo buutaantay fidsheen budulka raacsiinay balballaadhsiisaan looga rarin beerka hadalkayga baabacada soo hoos dhigto boowayaalaystay intaan badhi aqoon noo ceshiyo booshinna u gaadhay bal ku dhugo badhweyn iyo dalool iyo buro u sheegay baxwal saas ha yeeliyo ergoy biin qasha u joogay bisikee biyuu soo kabaday oo bogga u laashay badhax iyo markaan feenba tiray barasho faa'iida ha yeeshee wixii aan bariyo waxaan u boodh xaadhtay iyagoon wax igu beegihayn baabah kala laabtay buqshadii nafsiga aan ku siday bari ku soo reebay barqa dheer markay iga furteen bogax u soo jeestay boqoolaha jidaashiyo cidlada baase oday mooday baday iyo dhashii caashabaar eebba noo bixiye ergadii markii ay dhergeen ayay talo u fadhiisteen hase yeeshee tale waxay ku soo ururtay anaarsan oo weerar degdeg ah soo qaaday balse Cabdalle Axmed Samatar oo ku magac dheeraar Hadwalle uu in cabaar ah aamusnaa ayaa yidhi anigu waxaan noqonayaa sirdoon ama jaatuus waxaana iska dhigayaa nacas iyo qof liita wuxuuna u sheegay in dagaalka loo kaadiyey ilaa dadku ay ka soo hayaamayaan oo dhibicda roob ee u horreysa ay dii doonto oo markaa ku beegan bisha Maarso sidoo kale wuxuu yidhi dagaal waa geli dambe waana tab iyo xeed ee yaan waxba la degdegin taladii ayaa la qaatay waxaana lagu ballamay ceel la qoday meelan Hadwalle wuxuu dhex galay beeshii fardahooda dhacday isagoo dusha sarena qaawiyey gorofkuu ku dawarsadana qaatay
ergadiina waxay ku noqotay Sanaag iyo dhulkii ay ka yimaadeen. Dabadeed dadkii ayaa u yimi iyagoo ka raba xog waran. Sidaa daraadeed ayaa Gabyaagii Cabdifarfaan gabaygan oo la magac baxay Baalbaal dadkii ugu xog waran. Wuxuuna yidhi bacooda iyo cawsame dhaci nala ku boobteeyey baaran degdheer iyo markaan baanji ugu guulay labadii bahgooye tashigu iigu bixi waayey anoo biligu tuu iigu jiray waa tol uga baydhay goortaa dhigtay baasho aan baryay ergooday mar haddii inaan biiqay iyo bolol la ii qaat buro waxaan u daayiyo waxaan bari ka yeelmaagay boocii caddaabuu ka maray kaan u baanfalay ee bariiqada xigaalaha habeen waa la baryaaye berri iyo waxaa lagu simaa guurtii baanjida ee markaasaad ninkii kaa garbaxa kala bogsootaane isbadbeedi ruuxii kibro qooq la baaracaye anna baaji mooyee waqay bele ma aabbayne ha yeeshee buldiga aan buldiyey bari wixii yaallay marna baadhay uurkooda iyo waxa ka soo buuran inaan begin colaadeed rido dan ugu boosaaso iyo buukoy wareen wuuga badin waayee wadka kama bambaansamo nimay shiradii buuxdaaye bixisada haddiisa ah waxbaa lagaga beegaaye malaha inaan birta u looshado burursho mooyaane baxnaaniyo ledqabo waa waxaan bar ugu oolayne birmad raacdo baasaale guluf baara helisteeda beegsiga wareemaha nimaad aano bidanayso balalowda tabiteeda iyo qaylada iyo baaqa baxaanbaxa socdaal oofsashada booqashiya xaajo bulshadoo arooskiyo xustiyo beele tabashleyta bili iyo buruud xoojitiyo beer uwehelyeelka iyo bare kaleetoo fardaha loogu wada baahdo oo aan anigu boos u ahaa way balwanayaane baadida ku raagtay xalaal badowdu moodaaye waxba igama bulo ruux nafloo kaayo laysbadaye ninna kama badsado uumiyaha baahi noo dhexehe ninna intuu nabadda beeraan in la eg samaha baantaaye beledana intuu xamilaan dhib u babeeyaaye bilaa layga maray saalax garow baqalyihiisii iyo cali shire hadduu burin lahaa daadahduu barane belbel iyo ma wado baalle iyo xamarkii boosaana qoor looga diid baydu weyn tahaye badda kama gudbine waa waxaan bulumbul saarnayn idinkoo buruudkaa leh iyo baaxaddaa cududda marna bederka duulaanku yahay buro wax ku raacay haddaan buuxe loo keeni hayn baacis iyo dhiidhi ordoo booda geeyooyinkii beedel baa dilay markii gabaygaa ay maqleen iyagoo awalba diyaar ahaa ayay dhaheen waar inagu kiciyaan xoolaheenni soo dhacsanay hase ahaatee ergadii ayaa tani inoo kaadiya ninba maalin buu leeyahay raadwalla sirdoon ayuu ku maqan yahay ballanna waynoo tiili inta uu ka imanaya ayaan sugaynaa horena waa tin loo yidhi waxaan tegin nafsaa jira waxaan tulin wad baa jira waxaan aanadii dayn rag baa jira dagaalna waa gelin dambe haddaba arrinkaa markii ay maqashay Soomaalidu waxay damceen inay waanwaan ka galaan see weyla noqon weydeen nimankii 2 bilood waanwaanta ku jiray ee loo jeed bixi waayey inay waanwaan dambe gelayaan raadwalla sifa ahaan waa nin gaaban indhihiisuna ay yihiin kuwa bisada oo kale cagayranan isla markiiba saantii awrka ayuu ka samaystay tabadu waa shay wax lagu shubto dabadeedna wuxuu ku shubtay xuukadii neefka si uu beriyo u quuto sidoo kale wuxuu samaystay kaba wareegsan oo aan lahayn hore iyo gadaal toonna marihiisina waa jeexjeexay wuxuuna u jeestay gurihii reerihii fardaha ka soo dhacay reerihii wax soo dhacay way soo dhaweeyeen Raadwalle wuxuuna ku dhex milmay reerihii sirtana wuxuu ka urursan jiray dumarka oo yacni wuxuu la shaqeey jiray dumarka maalin maalmaha ka mid ah ayaa Raadwalle lagu yimi gabdho yar oo meel ku dubanaya waxara yaryar oo markaa dhashay waana ag fadhiisay si ay wax uga siiyaan markii dambe ayaa waxay siiyeen wax yar iyagoo u tilmaamay dab uu ka dubto Raadwalle waxaa fiirinaysay gabadh baydal la dhaho sidoo kale isna uu fiirinayay oo waxay ahayd gabadh ka su'aal kulul gabdhaha kale Raadwalle wuxuu iska tuuray madaxii iyo calooshii iyo majihii sidoo kale markii uu neefkii dubtayna tuunkii ayuu qori ku muday oo meel gaar ah iska dhigay intaa beedda waa fiirinaysay markii ay gurihii tageen ayaa la warsaday hase ahaatee hablihii kale si caadi ah bay u warrameen laakiin beedda waxay tiri waxaanu aragnay nin cod waayeen leh caga caruurad leh cunto gabeed leh iyagoo dadkii yaaban yihiin ayay gabdhihii yiraahdeen waxay sheegaysaa miskiinkii gorofle ahaa waana lagu qoslay laakiin kelmadii way caan baxday oo xataa waxaa ku sheekaystay raggii Raadwalle ayaa fahmay inay gabadhani tahay mid caqli badan wuuna iska ilaaliyay in badan hase ahaatee Raadwalle maalin maalmaha ka mid ah ayuu u yimi reer dabeedna wuxuu ku fadhiistay dhagax kulul oo u dhow dabka reerka mise reerkuba waa kii beydaniyo dabkana beydan baa waxay ku shilanaysaa bar markii uu fadhiistay ayay baruurihii oo kulul siisay dabeedna sida bahalka ayuu u cunay subagii kululaana gacanta ugu shubtay dabeedna sidii biyo u cabay markuu intiisii cunay ayuu damcay inuu boqolo
balse reerkii ayaa ku yiri nala joog isagoo ka cabsanaya gabadha yar ayuu kacay kolkii uu saa u kacay ayaa dhagaxii taabatay mise waa kulay oo intay gacanta kala soo booday tiri arbaldaya dhagaxu waa dab boodiya adaka ma fardafuul gaamurayba saabadiisa jilifta ah baa ka daray taw ma jara fardood baa sidaa u galay baabacadiisa iyo cagta geelu way isku mid dhacdadan ayaa mar kale soo shacbaxday maalintaas ayaa odayn dhalay yiri walla gabadha ninka ay sheegayso waa laga sheekeeyaa oo wuxuu ku taliyay oo yiri hadduu fardafuul yahay caawa markuu seexdo qori dabca bowdada kaga dhajiya haddii uu soo boodo ma aha fardafuul hadduu dareebi waayana waa fardafuul gaamuray sidii ayay sameeyeen laakiin Radwan waa nin ay hurdo isdaayeen markii uu arkay waxa lagula soo socdo inuu dab yahay ayaa markii saa loo taabsiyeyba uu qayliyay oo dadka oo dhan isugu yimaadeen ilaa ay ka baqeen inay xuquuq kaga dhacdo waxayna guda galeen in la aamusiyo hase ahaatee odaygii tala kale ayuu bixiyay oo yiri nin walba naag baa ka adag ninka u dira hablo haddii uu hablaha damco waa nin rag ay naga qabta haddii kalena iska daaya dabeedna waxaa la isku daray hablo biliclay isagii kadibna ceel ayay aadeen si ay dhar ugu soo dhaqdaan iyagoo mid walba meel gooni ay fadhiisatay mid walibana ay gaar ugu yeedhatay Radwan iyadoo xubnaheeda qaar tusaysay hase ahaatee waxaa dhig jala kuma siin ilaa markii dambe ay bilaabeen inay dusha uga baxaan yacni bal ninkan in wax dareen ah laga helo laakiin markiiba wuu qayliyay iyadoo laga cabsi qabo inuu dumarka ceebeeyo ayaa loo yimi oo la aamusiyay haddaba Radwan wuxuu markii dambe la degay gamboolna wuxuu ka helay ninkan firfircoonidiisa iyo shaqadiisa kadibna wuxuu ku yiri miri fardaha sidoo kale waxaa soo dhawaatay balantii maalin maalmaha ka mid ah ayaa Radwan isagoo hurdo maradii ka dhacday dabeedna xiniyihiisa ayaa waxa aragtay gabadh iyadoo tiri war ninkani nacas ka xiniyo waaweyn hase ahaatee ninkeedii ayaa ku yiri ninku ama nacas ha noqdo ama geesi ha noqdo raggu cadka xiniyaha la dhaho waa ka simay reerihii fardaha dhacay ugu dambeyn bari way ka soo guureen oo waxay ku soo guureen dooxooyinkii u dhowaa Sanaag balantiina waa soo dhawaatay waxaa la soo gaaray 3 habeen ee lagu ballamay sidoo kale beeshii bari ka soo guurtay waxay ogaayeen godobtii ay geysteen oo way feejinaayeen habeenada ka mid ah ayaa laba oday sheekaysteen oo yiraahdeen heblow caaw ma baqnaan markaasuu yiri oo yaa ka baqnaa soo yiri waxaan ka baqaynaa weerarkii Axmed Samatar Cabde taladii cilmiga hootadii shan dalaqoolkii Calibu raggan uu tiriyay waxay ka soo jeedeen beeshii Sanaag oo markaa diyaar garow dagaal ku jirtay waxay diyaariyeen cul fardooley ah markii ay damceen inay tagaan ayaa talaqamenkii cilmiga yiri war meeshaan u soconaa waa meel haraadi lagu leeynaye ee 4 farasba laba haamood hayinada hal loo saaray inta kadib odayaashii Radwan ay ballantu ka dhaxaysay waxay yimaadeen geedkii ay ku ballameen habeenkii koowaad bay furfuriyeen dabeedna cid waa u soo bixi weyd habeenkii labaad bay furiyeen dabeedna cid waa u soo bixi weyd habeenkii saddexaad bay furiyeen markay qoosteen islaanay Allah ilaahay ma noola ay iska dhaqaaqeen balse waaba kan isagoo qoslay maxaa yeelay ninkan sirdoon buu ahaa sirdoonkuna inuu fashilmo ayuu diiday markii uu yimi ayaa la wareystay wuxuuna sheegay in xoolihiisii oo dhan ay halkan joogaan laakiin fardihii badankoodii laga yimi ragguna ay feejigan yihiin sidoo kale wuxuu sheegay inay haystaan geel laga qami karo fardihii sidoo kale wuxuu sheegay maalinta Arbacada ee bisha u dambaysa inay reer ku leeyihiin Allabari xilliga in lagu soo qaado weerar kadis xogtii markuu bixiyay dib ayuu soo laabtay waxaana la soo gaaray habeenkii soo galisay Arbacadu Radwan habeenka ma seexan isagoo sugaya subaxdii sidoo kale Radwan habeenka wuxuu ag joogay faras aad u dheereeya oo loo jiray baqalye oo uu lahaa oday reerahooda ah waana faraska uu ka tafiirmay faraskii aan soo sheegnay ee loo jiray Taarig haddaba Radwan habeenkii oo dhan waxa maskaxdiisa ku soo dhacaysay odaygii iyo wiilkii rabay inay dhacaan fardaha ee habeenkii markay u yimaadeen xeradii fardaha odaygii wiilkii ku yiri inoo soo qabo laba faras oo kala ah xamar iyo baroor dabeedna wiilkii ayaa gudcurtii waxba arki waayay oo yiri ma joogaan markaasuu odaygii ku yiri ku noqo xerada faraska baroorka ay wuxuu joogaa raarta dambe kan jilba madowga ahina wuxuu joogaa xerada afkeeda hore markii uu keenay fardihii ayaa odaygii yiri fardaha waxaad mirsiisaa duxi waxaad nooga dambaysiisaa dureemo markay dhaqaaqeen ayaa wiilkii yiri laba faras oo cayb ah ee daba jooga markaasuu odaygii yiri inawad orodkoodu waa aroorta hore iyo inta qaboonada ah muddo markay socdeen ayaa wiilkii yiri waa laba kale oo xamar ah markaasuu odaygii yiri kaynta misirka ah inoo leexi dhirta kuma ordi karayaan haddana cabaar markay socdeen ayaa wiilkii yiri waa laba ashtir markaasuu odaygii yiri qarka cagaaga ah inoo leexi cidiyaha ku xanuunayo oo ku ordi kari maayaan haddana wiilkii baa yiri waa laba qaaca markaasuu odaygii yiri
banka cadceedda ah inuu leexi waxba arki maayaan ugu dambeyn wiilkii baa yidhi aabba waa laba faras oo kuweyn oo kala markaasuu odag yidhi ninkii xalay duximirsiiyey saakana dureemo ugu luqluqday ayaa ku leh aabbe habidin ina soo gaari maayaan kooradada haddaba faraskii ayuu habeenkii oo dhan kob duxi leh marsiinayey subaxiina dureemo ayuu uga dambaysiiyey dabeedna wuxuu yimi gurigii si uu wixii ugu dambeeyey uga sii qaato daba raggii guryaha joogay waxay u dareereen madantii ama shirkii gamboolna wuxuu ahaa nin dhaqaale badan oo wuxuu isku dubaridayay xoolaha iyo carruurta gurigii waxaa ku soo hadhay kooradada iyo carruur kooradada markuu isku hubsaday inuu guriga keligii joogo ayuu sagihiisii qoofalka ka soo furay isagoo soo hojiyey guriga afkiisa dabadeedna aqalkii ayuu galay oo furay abxadkii oo kala soo baxay laba go' oo cadcad iyo cimaamad faraqyo dhaadheer leh oo si fiican u labis abxadka kolley waa wax sidii boorsada oo kale ah haddana safadkii ayuu furay oo kala soo baxay qaanso iyo leebab degdegna wuxuu ila soo booday koorihii faraska uu si cajiib ah u saaray markaasuu intuu qosla yidhi kooradada dhex gabadh yar oo carruurta ka mid ah ayaa tidhi kooradadaba miyaad ciyaaraysaa isna intuu qoslay ku yidhi canabay ciyaara ka tagtay kooradada markuu faraskii u dhammeeyey ayuu intii korkiisa fuulay oo ku timicsaday yidhi waa kooradada kii lahaa dheh kooradada intuu cimaamaddii afka ku soo duubtay ayuu ku soo xaragooday oo soo aaday meeshii shirkan lagu qabanayay dadkii ayaa arkay ninkan ku soo xaragoonaya faraska oo sacab fiican u tumay isna faraskii ayuu soo eriyey dadkuna waxay isweydiinayeen ma gabool baa ma guray baa mise waa hebel isna intuu geedkii 3 jeer ku soo wareejiyey intuu cimaamaddii afka furay yidhi kooradada dheh kii lahaa dheh oo leeb ku soo ganay goobtii shirka raggiina dheheen tollaay waa kooradada war meesha naga kiciyo colbayna haye oo farda ku baacsadeen kuna ganeen leebo balse intuu faraska dhinac kaga fadhiisay ay mar qoriya nuurkiisii waayey intaanay qobtiiba ka kici mise waa ciidan diigaan oo uu horkacaya kooradada waxaa meeshii rayska ahaydna laga dhigay gilgelin horena waa tii loo yidhi 3 meelood waa gilgelin meel geesi ku irdamay meel geel ka dheelmaday meel geesi ku irdamay meel geel ka dheelmaday meel gore ilmaha dhigay halkii ayaa lagu warjeefay waxay xoolo haysteenna laga dareersaday hase ahaatee qoyskii uu kooradada la joogi jiray ayaa kooradada beer la xawsaday laakiinse jixinjix markay ka waayeen ayay dhaheen ariraad walna ilaahay ka yaab inkastoo aan laysu keliya jireecin haddana kooradada ma sii faramarin reerkii foolshibinin lilaahi kara maahan isna waxaa lagu yidhi xoolahaaga dhahadh weliba adiga iyo inta kula reeraha hase ahaatee waxaa la arkay geel meel ku oodan oo ay hor joogto gabadh yar oo gudin wadata nin allaale iyo ninkiisu u soo dhowaadana gudinta kala hortegaysa 2 nin ayaa xaggeedu u dhaqaaqay markaasay tiri war 3 halba xoolaha noogu daayay waata koowaada bilis baan nahay 100 lama joogo waata labaada bela kama talino booliyana kuma jirto waata saddexaada bisinkan ku oodnay sakana kuma baaqato hase ahaatee nimankii tay gabadh yaree tuureen ayay damcaynay geeli soo dareersadaan baxwal oo ahaa abanduule soo istaagay meeshii dabeedna ku yidhi haddii ka tagin geelan innagaa isku baxayna qacdigii indhaha qalbigiiba ay la tagtay oo wuxuu ku fekeray mar inuu qafaashto marna isiiris kala joogba halkaa iyadoo xaaladi marayso ayuu ku warheray iyadoone inaad arbax walow waad mahadsantahay orod yaanay raacdadu ku dilini ciidankaagii tagi sheekaduna halkaas ayay inoo joogaysaa waxaana kugula talinayaa inaad buugga soo iibsato waadna ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka mahadsanid